yurub markaan tagaan ogaaday af soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqad diin xambaarsan waayo dhasha maanta yurub joogtaa ee soomaaliyeed intooda badan iyo soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yidhaahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba kaa garanaynin kaasuu gurigiisii u haystaa adiga hadduu kuu yimaado waa waageeni isma fahmaysaa intaa waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la la'yahay waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay soomaaliga xataa afafka kale waxa laga yaabaa inay fahmaan inaanay ku hadlin xataa afafka kale ku akhriya ama wax ku bartay inay fahmaan baa laga yaabaa inaanay ahayn maxay fluent speakers maaha sida awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya inanka soomaaliyeed ee norway ku koray ama sweden ku koray ama denmark ku koray ama germany ku koray ama af soomaali ma hayo hadduu af soomaali waayo yuu diin ka baranaya baa idinka idin weydiinayaa yuu diin baraya ma af carabu bartaad u malaynaysaa yuu diinta ku baranayo mise af norwija diini ugu qoranta maya xaguu markaa diin ka baranaya kaasi kuu sii dhala muxuu barayaa kaasi waa laga yaabaa markuu gababo inuu yidhaahdo hooyadayoo tugtukataan soo gaadhay laakiin ka yari ma soo gaadhin يعني مسلمينتي قبطي مثلا وطن كان لا يراهدو استراليا حقيقة كدنبيه مسلمين بدون افغانستان على قاضي اوروبي ودين انجليز كو ترنده ما هيسنين ترنده markuu dhisanayay geel asal la watay geel tirada badan la imaka keynta lagu sii daayo Australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen wadarkii un qof family name kiisa saddexaad family name kiisa dambe uu magac muslim yahay laakiin sabaan muslim ahay iyo wuxuu dhowtoona Soomaalida South Africa la geeyay xagee ku dambeeyeen Soomaalidan Kenya meelaha waxa laga yaabaa inay ku sii dhawaayeen wali wadankii oo ay waladan East Africa inay wadanka si uun xidhiidh u lahaayeen Soomaalida South Africa la geeyay 500 oo nin bu Ingiriis ku geeyay waxba laga hayo hal nin la sheegaa hal nin la sheegay wax noqdo markii damar Soomaalida ku soo noqdo intii kale iyo waxay dhaleen toona meel ku dambeeyaan lama hayo saashay isweydiinta le waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga meesha tagay mustaqbalkoodu sidoo noqonaya de waa laba mid in laga xoog bato la meelo oo dadku si cad uma oranayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tagay laakiin wuu milmaya jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii diin yariyay ilan systemka waxbarasho uu galayo noloshu la kulmayo dadku la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo deynay sida u dhacdo iyo si kale mucjiso ayna u dhacdo taana rageedii lama hayo wali ma aragday sida kale mucjisadii waa maxay waynaanu jiilu saxaabo kala noqono dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyush min ad-du'aat inay yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadama bedelaya de hore way taariikhda uga dhacday wadad muslimiin hore oo sameeyay laakiin dadkani hami diineed ma sideen markay meesha tageen mise hunguridoon bay haayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin al-jund al-majhul lil-islam dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yar oo halada ahaan jiray waa soo islaamaan laakiin inta inaga baxday inta islaamta ka badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada ka badan wali waxaad moodaa inuu badan yahay inta xaqooda u soo soconaysa